marka hore marti sharafta dhammaan waan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka caawa ay idiin soo qabanqaabiyeen xarunta dhaqanka horumarinta dhaqanka geeska Afrika oo ah maanta soo qabanqaabisay barnaamijkan oo ah mawduucdiisa ay ka kooban tahay sidii loo ilaaliyo dhowrista mataqaanaa hawiyada Soomaaliyeed iyadoo ay ku hoos jirto alwasadiya alislaamiya barnaamijkan wuxuu ka koobnaan doonaa laba marxaladood ama laba niqaash qaybta koowaad waxay noo soo jeedin doonaa Cabdallah al-Ustaad ama albaaxidka Cabdallah Nuur Xasan oo ka hadli doona dhaqanka Soomaaliyeed qaybta labaad waxaa ka hadli doona oo maanta martida inoo ah sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir oo ah caalim weyn mufakir islaami ah aad loo yaqaan cariga Soomaaliyeed marka hore intaanan barnaamijka aan loo guda galin waxaa kaloo inala jooga barnaamijka dhaqanka ka hadli doona safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar ahna wakiilka jaamacadda dowlad carabiga u fadhiya Soomaaliya oo isagana ah dhaqanka aad wax uga yaqaan Soomaaliyeed oday Soomaaliyeedna ah marjacna u ah dhaqanka Soomaaliyeed sidaan dareemayno intaan barnaamijka aan gelin haddaan faahfaahin ka muujiyo markaskan soo qabanqaabiyey barnaamijka waxaa la aasaasay bishii saddexaad 2011 26 bishii saddexaad 2011 ayaa la aasaasay waxaana aasaasay dad aqoon-yahano ah oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah waana barnaamijkoodii ugu horeeyay ay maanta soo bandhigaan oo halkan ay ku soo bandhigaan markaskan waxaa aqoonsaday ama hoos tagaa raabida alcaalamiya likharijiy al-Azhar oo ah World Graduation Organization oo caan ah ayaa barnaamijkan uu kala kaashaday oo la qaban qaabinaysa maanta markaska wuxuu aqoonsi ka haystaa wasaaradda tadaamun al-ijtimaaci al-Misri iyadana aqoonsi ayuu ka haystaa waa markii ugu horeysay oo barnaamij uu qabto insha Allah waxaa noo faahfaahin doona gudoomiyaha markaska oo aan ku soo dhaweynaya mar dhow intaan ku soo dhaweyn waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leeyahay marti sharafta soo dhawaada haddii intaan aayadaha quraanka iyo barnaamijka aan u gelin waxaan dul marayaa marti sharafta inala joogta barnaamijka nagala qayb qaadan doonta waxaan nala joogaa safiir Cabdallah Xasan Maxamuud oo isna barnaamijka nagala qayb qaadanaya caawa waxaa kaloo barnaamijka inoo soo jeedin doona qaybtiisa koowaad oo dhaqanka ah Cabdilaahi Nuur Xasan wuxuu haystaa baccalaureate oo qaanuun ah wuxuuna ka qaatay jaamica al-Afriqiya al-caalamiya oo Suudaan wuxuu haystaa dibloma oo qaanuun caam ah jaamica Niileyn oo iyadana Suudaan ah wuxuu haystaa diblom oo qaanuun khaas ah oo jaamicada al-Khartoum ah waxaa kaloo barnaamijka qaybtiisa dambe oo sheekh martida inoo ah caawa oo isagana uu kaga hadli doono al-wasatiya waa sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir sheekh Cabdiraxmaan Suleymaan Bashiir tacliintiisu waxa weeyaan license fi shariica wal qaanuun oo ah jaamica al-culuum wa technology fi Yemen magister shariica wal qaanuun oo ah Umdurmaan oo Suudaan ah ومستشار في المحكمة العليا في جيبوتي سابقا ومستشار قانوني في وزارة الأوقاف حاليا
haddaa intaa kaga baxo barnaamijkeeni ayaan furan doonaa waxaana ku furanaynaa waxaa kaloo nala jooga oo aan yani aan ka hilmaamay xildhibaan mukhtaar ayaa nala fadhiya oo ah wakiilka raabida alcaalamiya likhariijiyi alazhar u fadhiya waddanka Soomaaliya xildhibaan dowladda federaalkana ah isagana kelimad buu oran doonaa hadduu ilaahay idmo intaan barnaamijka u guda gelin waxaan aayado quraan ayaan ku furan doonaa waxaan inoo akhrin doonaa Sheekh Xasan Ibraahim falyatafadal. الله العظيم هذا يوم هسنيا أستاذ حسن مركزنا وحان كسر دوينيا قدوميها مركزك جيسك أفريقيا مرينتا دقنك جيسك أفريقيا